السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتك وحرين جنال كاركتسن يوتيوب كسو دواذا برنامج كمانتا فنانك FJ حبيب أيا جبيها بشاعيي إن وجوجي فانكا دابا محيطاي قصة كدن بيسا إن فنانك وشاعيي إن وجوجي جبيها بفانكا سدان آدك وحانونك بدن أيا FJ حبيب نلو ذاقي زي أي أبرقادش ugu noqoto kuwa fanka hadda ku jiro iyo kuwa raba in ay fanka soo galaan FJ Xayib ayaa waxa uu sheegay inuu ku tala jiro duubista hees cusub taasoo ugu tala galay 2020ka waxa uuna inoo sheegay inta badan heesaha uu qaado inuu isagu ka fikiro muuqaaladooda qaabka ay noqonayaan maadaama aan jeclaan jiray buu yeeray inaan viewers badan ka helo heesahiga haddaba FJ Xayib ayaa waxa uu yiri anigu inta badan waxaan waqtigay ku qaadan jiray sidii aan u raadin lahaa hees cusub haddii aan hees helana waxaan u raadin lahaa sidaan heestaas kaga dhigi lahaa mid qarxada oo ay dad badan daawadaan sidaan wada ogsoonahay fanaanintu haddii ay hees qaadaan waxa ay ku daraan sidoo kale in ay iska soo duubaan muuqaal haddaba FJ Xayib ayaa waxa uu ku jira diyaarinta muuqaalkan waxa uuna sheegay inuu qorayay maalinba maalinta ka dambeeydo sida uu noqon lahaa muuqaalkan haddaba waxaa dhacday in habeenada kamid ah waliba xilli dambe oo ay saacadu ahayd 6 saac habeenimo inaan ku gaaray internetka waxaana markaan internetka iska sii xiliyay ku soo dhacday qayb kamid ah kilibka heesta oo aan ka fikirayay inaan ku duubo meel uu magaceeda noogu sheegay inay beer ahayd haddaba anigoo sidaa ku fikirayay ayaan qoray waxaan ku qoray mobilkayga notekiisa si aan u diyaariyo oo aan meeshaas u tago biri una soo qiimeeyo maxaa yeelay haddii aan seexdo waxaa laga yaabaa inaan kala ilaabo qorshaha ayaan ku darsaday waana qortay haddaba waa aan seexday anigoo niyadeeda midaas ay ku jirto waxa uu noo sheegay fanaanka FJ Xayib in habeenkaas isla joogin dhalinyaro waxa uu sheegay guriga in la degan yihiin dhalinyaro asxaab ay yihiin kuwaas oo ay bahwada ku yihiin fanka hase yeeshee waxa uu sheegay habeenkaas qolka waxa la seexan jiray wiil halkii wiilna waa u maqnaa waxa uu sheegay fildiga ay degan yihiin dhalinyaro badan ku joogeen balse qolkiisa isaga hal wiil kaliya oo la seexan jiray haddaba wiilkii ayaa habeenka maqnaa waxaana iska muuqatay in riyadan lala doonayay fanaanka waxa uuna baraha bulshada ama facebookiisa ku soo daabacay boqshad uu ku sheegay qofkii ilaahay hanuun la doonayo inuu ilaahay isagu gacantiisa ku waafajiyo waxa uuna inooga bilaabay qisada halkan waxaana guda galay buu yiri riyadii markii aan riyada guda galay ayaa markii ugu hore waxay riyadayda bilowgeedii ahayd ka fikiritaanka heestii haddaba maxaa isbedelay waxa mar qura isbedelay joogaygi waxaan dareemay xaalad aad u cabsi badan oo murugo badan kadib markii anigoo idil bahaysti iyo waxa aan ku duubayba qalbigayga ka baxeen waxaanan tagay meel ay ku sugan yihiin dad aan wajiyadooda garanayn guryo aan weligay arkin buuro iyo sidoo kale geedo waaweyn meeshaas waxa ay run ahaantii meel aad u cabsi badan marka qaar waxa maqlayay buu yiri shimbiro iyo wax qalqaylinaya mana dareemi karin haddaba anigii dhan waxaan tagay adduun kale meeshii ayaan ku socdaa waan cabsanayaa dad ayaan arkayaa wajigooda ma kala saari karo haddaba waxaa dhacday in aan sidii ku sii waday socodkaygii intaa waa lay wada oo riyo ahaan ayaan ka socdaa balse jismigaygii waxa uu joogaa meesha qalbigayga ayaa la qaaday si loo soo jilciyo oo loo dabciyo haddaba waxa uu sheegay qisadan waxay ahayd mid murugo leh jirkayga meelna kama dhaqaajin karin waa lay wato waa lay hogaaminayay ugu dambeyn sidii aan u sii socday ayaa waxaa la isaaraa meel buur ah buurtii waa aan fuulayaa waan ku rafaadayaa ma kori karo cagacadaan ayaan ahay ma socon karo intaasoo culaysa ayaa isaaran waxaan ahay ruux aan dhaqaaqi karin culayska isaaran waxaad moodaa buu yiri in la iiri 5 qofood inta dhabarka lagaaga xiray buurtan kor sidoo kale ma awoodo inaan meeshaas ka soo dago oo ma dhaqaaqi karo awoodda kaliya ee aan leeyahay waxa weeye inaan meeshaas koro waan ku qasbanahay inaan meeshaas koro waxaana kaliya niyadeeda ku jirto sida meesha u kori lahaay haddana waxa isaaran culays aad u fara badan waxaa dhacday inaan meeshii koro oo aan buurtii koro markii aan dhaladeeda tagay ayaa haddana waxa la yiri ka deg kadigitaankaas waa ii fududeed oo waxaan uga soo degay si tartiib ah ugu dambeyn waxaa la ii keenay sidaan u soo socday meel ay taagan yihiin niman dhaadheer oo murqo waaweyn leh kuwaas xoogooda markii aad fiirido aad is leedahay kuwaani adduunkaba intii aan joogo kuma aan arkin waana yaabana riyadan waxa ay tahay xitaa ma awoodin dhaqaaq inaan sameeyo kaliya waxaas la ifaray ayaan sameeyay waxa uu sheegay in nimankii ay taagnaayeen meel waxa ayna ku hareereysanaayeen meesha aan taagnaa anigu meesha dhaxda ah ayaan soo istaagay kadib waxa la yiri korkaaga fiiri markii aan kor fiiriyay waxaan ku arkay buu yiri xarig soo laalaado waxa la yiri qoorta ayaad gashanaysaa badid markii qoorta lagu galiyo ayaa halkaas madaxa ah laga surayaa waxa aadna ku qasban tahay kursiga lagu dhigaa kursigaas waa laga bixinayaa waxa igu yiraahdeen buu yiri maanta waa maalintaadii kugu dambeeyay adduunka halkaan ayaa lagu gelinayaa wayna ka idlaatay nolosha ee isdhiib ee meeshaan tag anigii waxba ma awoodo waxaan ku qasbanahay buu yiri inaan kursigii meesha yaalay koro dabadeed wax uu yiri qoorta ayaa waxa la ii galiyay xarigii isla markii aan qoorta xariga la galay
waxa ay tuureen buu yiri kursigii. dabadeed anigii meesha ayaan jaq ka soo dhaxay. markii aan meesha jaq ka soo dhaxay ayaan waxaan la soo booday qaylo aad u weyn. waxaana gabi ahaanba dareemay dadkii xataa diriska ilaaha gurigii qolkii ila jiifay dhalinyarada way soo galeen. FJ maxaa kugu dhacay ilaahan? aniga waan naxsanahay, aniga oo weerarsan oo jahawareersan dhalinyarada dhan baa isku soo baxeen. way ii maadeen maxaa kugu dhacay? saacada kadib waxaan uga warbixiyay arrintaydii. dabadeed habeenkii intii hurdada iga dhimaneed xitaa maan seexan. waxaan tukaday salaadaydii. markii aan salaadii tukaday baan ducaystay. waxa aanan dareemay oo qalbigaygu dareemay in waxaan la i tusinayay ay tahay wax aniga maanta cibro qaadasho la iga dhigayo oo adduunka dushiisa baa la igu tusay xanuunka ay iska leedahay qiyaamaha iyo sidoo kale haddii aad adduunka dushiisa wax qaldan ku sameyso hadhow in laga jaa'iseeyo. waxaan go'aansaday inaan gabi ahaanba fanki isaga baxo. waxaana agteeda deganaay masaajid ay lahaayeen wadaadada tabliiqa. waxa aana u tagay maalintii waxaana u sheegay arrinteeda u warbixiyay. dabadeed waxa ay yiraahdeen anagu diyaar ayaan kuula nahay, waan kuu nasiixahaynaa walaalo, inagana raac oo sidoo kale xaqan iyo diinta aan faafihayna nala faafi. hadda waxa aan go'aansaday buu yiri inaan majmacaas ku biiro inta nolosheeda ka dhimanay aan ku talagalo sidii aan diinta u faafi lahay oo aan u garab istaagi lahay diinta iyo xaq Ilaahay. waxa uu sheegay gabi ahaanba dadkii Soomaaliyeed heesiisa dhageysan jiray inay iska dilaadgalayaan. waxa uu ka codsaday dadka Soomaaliyeed heesiisa qaatay inay iyaguna ka bixiyaan YouTube-da. sidoo kale waxa uu sheegay in dadka Soomaaliyeed aysan dhageysan heesiisa ayna Ilaahay dartiisa ka dhaafaan maadaama isaguba fanka Ilaahay dartiis uu isaga dhaafay. sidoo kale FJ Xabiib waxa uu sheegay inuu baraha bulshada ka faafin doono dacwadda islaamka. waxa uu sheegay inuu dadka uga nasiixayn doono xumaanta una fari doono wanaaga. waxa uu fariintan soo dhigay bartiisa Facebook isagoo ku cadeynayo inuu fanki gabi ahaanba ka baxay. waxa uu sheegayaa sababihii ka dambeysay isagoo soo dhigay warqadan dheer uga hadlaya toobadiisa. haddaba daawada waxaan idinka rajeynayaa inaad arrintan ku cibro qaadan doontaan. waxaana faaninta Soomaaliyeed ee fanka iman ku jira kula talinaynaa in sida wiilkan oo kale dhalinyarada ah